magaalada Buuhoodlana muddooyinka u dambeeyay waxaa ka socday mashruuca dhismo wado loogu talagalay in loo dhiso laami taasi oo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadweynaha deegaanka Buuhoodle oo baahi weyn u qabay in loo sameeyo wadooyinka dhex mara magaalada. haddaba waxaanu rayigooda iyo dareenkooda ku aadan wadadani wax ka weydiinay qaar ka mid ah waxgaradka iyo shacabka ku nool magaalada Buuhoodle kuwaas oo aragtidooda ka dhiibtay wadadani. bismillahirrahmanirrahiim aad baan ugu faraxsanahay dareenkeyguna heer sare weeyaan waan u baahnay in loo sameeyo laami maxay hayto iyo meel baabuurta ay marto oo maxay hayto ama baakinna leh waxaan ugu baaqaynaa waxa la yiri Soomaalidu waxay ku maamahdaa hal maalin bay ceel joogtaa ayaa lagu maamaha hal maalin bay ceel joogtaa micnaheedu waxa weeyaan maanta ayaa qabyada gacanta lagu hayaa waxaanu hay'adda iyo DDG-da iyo dadka gacanta ku haya waxaanu ka codsanaynaa wax aan nagu soo noqonin oo maxay hayto oo aan bari ka maalin aan isku cilkaan bi in loo sameeyo wadi jeedaan maxay tahay wax la baxay roobka diidoona iyo gudcurka soo socda waxaanu digniinta ka sii bixinaynaa habka qaylada laascaanood ka socota ee anaga nagu dhicin أولاً magacaygu waa Maxamed Faarax Aadan waxaan soo dhaweynayaa marka hore tijiga kalsan inta badan arrimaha bulshada uga hadlay sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa wariyaha Cabdi Ciise waxaan doonayaa inaan ka hadlo fikirkayga ka dhigto wadada magaalada laga dhisay hadda ay wado hay'adda DDG ay mas'uul ka tahay company-ga uu wado waxaan aad iyo aad la dardaarmaynaa company-gan mas'uulka ka ah mashruucan isagoo u dhisaya waxaan leenahay ururka ka ayaa la dardaarmaynaa waxaan leenahay hawshan aad wadaan ee company-gan uu wado ee wadada yeena noqonin hal bacaad lagu dhisay hawshaas waxaan ognahay oo lagu maqaalo ah oo aan tijiyada ka daawanay sida ay u qabanayaan gobolka Sool oo kale oo laamiyada loo sameeyay ay jiraan ma doonayno waxa loo sameeyaa inaan maanta noo samaysanto wadada wadnaha ee jidka magaalada Buuhoodle gobolka Cayn si sharaf badan ay u socoto hay'adda noo keentay iyo cid kasta la shaqaysayna waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol nahay ururka haweenka gobolka Cayn afkooda aan ku hadlaya waxaan leeyahay hay'adda iyo hawlwadeennada ka shaqaynaya wadada inay si ilaahay taqaano oo sharaf badan ugu sameeyaan wadada yana u samaystaan oo magacooda iyo sumcadoodana kor ugu qaadaan oo aynay noqon bari ka maalin meel noqota maxay haytay burbur yeelata ama xumaata haddii ay wanaagsanaato waxaa laga yaabaa mashaariic kastoo magaalada ka dhacda inay helaan company-gaas uu helo haddii ay xumaatana waa ku khasaaroobay meel kasta oo ka hawlgalo waxay u noqonaysaa naqshad ka xumaatay bay u noqonaysaa marka waxaan leeyahay ha laga taxadiro laamiga si wacan ha loo dhiso ha la adkeeyo marka hore waxaan soo dhaweynaynaa maanta oo taariikhdu tahay 8 bishii 12/2015 wadada laga bilaabay wadada maanta ka bilowmatay magaalada Buuhoodle laamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa dadka isu taagay hawshaas ha ahaadaan guddiga hawlwadaag hay'adda DDG iyo company-ga wadaba dhammaan waa mahadsan yihiin hadda hore Ilaahay baa iska raayay waa mahadsan yihiin waxaan u sheegaynaa horta wax aad loogu farxo laakiin anigu waxaan ka digayaa oo halkan ka sheegayaa cabasho badan oo kasoo yeeray islaamiyo hore la sameeyay sida bulshada reer Mas'uud ay ka caawinayeen marka waxaan leenahay haddaan hay'ad Buuhoodle anigu ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Cayn wadadaasi ha noqoto mid dhaxalgal ah bismillahirrahmanirrahiim aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay oqaasha deegaanka Buuhoodle wadadan imika la yagleelay waxaanu aad uga hadlaynaa oo aanu ka dardaarmaynaa oo aanu cadeynaynaa oo aanu iftiiminaynaa inaan wadadaas noqon wada kala yaacda oo dhoobo iyo dhagax la saaray noqota oo sidii tiilaas caanood dadku hoosta ka maro hadday taasu dhacdo injineerka meesha wada iyo ciddii keentay iyo baahida u shaqeynaya kulli maxkamadda heeg baan horgeynaa wadada waxyaalaha laga ilaalinayo oo la rabo dadku in ayna
wadadan ku qubin waxa kamida biyaha dufanka leh biyaha saabuunta leh iyo biyaha sonkorta leh saddexda biyo waa laga ilaalinayaa wadada marka la dhisayo iyo marka la dhisaba sababtoo ah saddexduba waa saddex shay oo kimika ka samaysan oo hadhow mustaqbalka ciidan hadda rullada ay marayso oo la kala bixinayo iyo marka daamurka lagu shubaba intaba waxay yeelayaan. wadadani ayaa noqonaysa tii ugu horeysay nooceeda laga hirgeliyay magaalada Buuhoodle waxaana si weyn u soo dhaweeyay dadweynaha deegaanka Buuhoodle oo iyagu baahi weyn u qabay in loo sameeyo wadada weyn ee dhex marta magaalada Buuhoodle taasi oo xilliyada roobka ay fadhiistaan biyo halka horay wadadani loo dhisay isla markaana ay imika ku sii noqonaysay sideedii hore. Cabdi Casiis Aadan Jaamac Kalsan TV Buuhoodle.